بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal daawadayaal waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay sheegdo cali 27kii bishii December 2011 aanu safar ku nahay magaalada Birmingham ee dalkan Ingiriiska waxaanu ka soo socdaalkeena ka soo bilownay magaalada London ujeedada socdaalkeena ayaa wuxuu yahay baadigoob aan ugu jirno sidii shacbiga Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen nabad iyo baraare iyaga oo aan u rajeynayno in Ilaahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed uu xasilooni ka aslaaxiyo dawlad islaami ah oo shacbiga Soomaaliyeed ku hagta diinta Alle ummadda Soomaaliyeedna ay ku kala baaxaan dhibka iyo dhibaataduna ay ku yaraado isku daygan ma aha mid bilowday dhawaanahan dabcan ducaale ciise yuusuf iyo cabdilaahi cali hiirad oo iminkeedin la hadlaya waxaa dadweynaha Soomaaliyeed ay ku barteen sidii ummadda Soomaaliyeed had iyo gooraale ay ugu kici lahaayeen isla markaasna ay ugu hor iman lahaayeen faragelimaha shisheeye ee lagu hayo dalka Soomaaliya hadeer oo aan ku dhex jirno gaarigeena oo aan ku sii wajahan magaaladaas Birmingham ee dalkan Ingiriiska ayaan waxaanu jecelnahay inaan halkan ummadda Soomaaliyeed dhowr arrimood oo tusaale ka siino number 1 Soomaaliya marxaladda maanta ay ku jirto waad aragtaan marxaladdii hore ay ku jirtayna waad garanaysaan Soomaaliya waxaa qaybiyey dalkan aan maanta ku sugannahay ee Ingiriiska la yiraahdo 1945 shirkii Berlin ayaa Soomaali in lagu duulo oo la gumaysto ay dawladahan reer Yurub iyo xabashidu ku ballameen kadibna markii xorriyadu ay soo dhaweyd ayuu dalkan Ingiriiska dhulka loo yaqaan Soomaali galbeed waxa uu ku daray Ethiopia dhulka loo yaqaan Koonfur galbeed ama NFD-na lagu daray dalka Kenya dhibaatadii waagaas dhacday ilaa iyo iminka waxay socotay muddo aad u fog Soomaaliya waxay dagaal la gashay dalka Ethiopia sanadii 1977 si ay u hanato ama ay u soo ceshato dhulkeedii dagaalkaas kuma aanay guuleysanin maadaama ay gaalada adduunku oo xilligaas ay horkacayeen shuuciyadda ama dalkaas Russia iyo Soviet Union Cuba iyo dalalkii ku midoobay midowga Sovieti ama shuuciyiinta ahaa waxay duulaan xad kala hor yimaadeen Soomaaliya oo xilligaas uu ka jiray xisbi isaguna shuuci ah oo uu horkacayay sareegaas Maxamed Siyaad Barre oo ahaa madaxweynihii dawladdii la magac baxday dimuqraadiyadda Soomaaliya oo Soomaaliya ka amba qaaday 1969kii 21 Oktoobar dhibaatadaas soo jireenka ah kadib waxaa dalka laga dhaxlay dhibaatooyin fara badan oo ay sababeen markii kooxo Soomaali ah ay u gudbeen xadka Ethiopia oo ay Soomaaliya colaad fog kala dhaxaysay isla markaasna dagaal xun markaas ay isla galeen 1977kii jabhadahaas oo ay ka mid ahay jabhadii SSDF iyo SNM USC SPM jabhadihii la midka ahaa waxay dib ugu soo duuleen dalkoodii iyagoo garabsanaya dawladda Ethiopia kadib waxaa halkaas ka dhashay dagaal qaraar oo sukeeye waxaa burburay dhammaan haykaladii qarannimo waxaa burburay nidaamkii iyo sharcigii iyo kala dambeyntii waxaa burburay wadajirkii iyo iskaashigii shacbiga waxaa burburay isdhexgalkii iyo integrationkii shacabka waxaynu ka dhaxalay deegaano qabyaalad iyo dagaal sukeeye oo ay dad fara badan oo Soomaaliyeed ay naftooda ku waayeen xubnahoodii ku waayeen qoysas badan oo Soomaaliyeed lamaanayaal ay ku waayeen wadajirkoodii dhalinyaro yaryar oo kalgacal iyo jacayl u dhex yaallo ay ku waayeen jacaylkoodii iyo qofkii uu qof walba eeganayay inuu mustaqbalka la wadaago arday fara badan ay ku waayeen dugsiyadoodii hoose dugsiyadii dhexe dugsiyadii sare jaamacadihii kuliyadihii dalka wax laga baranayay dad badan ay ku waayeen guryahoodii daris badan oo isjeclaa ay ku waayeen darisnimadoodii iyo walaalnimadoodii kooxo fara badan oo kubadda cagtooda ciyaari jiray ay ku waayeen
saaxiibtinimadii iyo iskooxaysigii sportis hadday atleetikada noqon lahayd hadday basketballka noqon lahayd hadday kubadda cagta noqon lahayd dhallinyaro fara badan oo ciyaal xaafa ah ay ku waayeen dhallinyaradooda xaafadda oo ay saaxiibada ahaayeen oo weli qulubtooda aan sina uga mayrmin kana mayrmi doonin sida aniga oo kaleeto oo aan ka xusuusto asxaabtaydii shareeco farxaan ninka la yidhaahdo xasan cadde john xuseen carab dhallinyaro fara badan oo runtii aan halka lagu soo koobi karin dhinaca gabdhaha ubax shiro sooday oo iyadana aan sidoo kaleeto iskugu galaas ahaan jirnay dad aad u fara badan runtii daahir kacaan maxaa la yidhahdaa shamsi qalanjo dadku aad buu u fara badnaa dhallinyaro yaryar ubaxii dalka maanta hoggaanka u qaban lahaa ka baran lahaa maanan helin fursaddii aan dugsi sare ku aadi lahayn aan jaamacad ku tegi lahayn waxaasoo dhibaato ah waxaa noo geystay jabhadihii ka soo duulay etoobiya oo burburiyey dowladdii xilligaas dalka ka jirtay dowladdii xilligaas jirtay waxay ahayd dowlad dictator ah isla markaasna gashay dembiyo fara badan oo bini aadamnimo laakiin waxaa habboonayd kolley qofku hadduu xitaa ina ka tegi waayo oo dowladdiisii iyo nidaamkiisu si kaloo lagu saaro la waayo lama waayin kacdoon shacbiya oo nabadgelyo leh sida maanta caalamka ka jirto oo kaleeto horena looga bartay magaalada muqdisho mudaharaadyo fara badan oo dadku saas oo kaleeto iyadoo aan la isdilin in xitaa la sugo qofku uu dhiman karaa in masaajidada laga habaaro guryaha laga habaaro siyaabo kaleeta wax loo bedeli karay si kasta ha ku dhacdee waxaynu ku seegnay gacmihii lugihii indhihii dhegihii wadajirkii iyo noloshii waayo waa laysdilay dhagaha layska jaray dhibaataa dhacday dadkii dhibaatadaas geystay kama aanay tanaasulin inay jiilasha soo kacaya u oggolaadaan inay hoggaamiyaan hannaankii qarannimo haybaddii iyo sharafkii soomaalinimo in la soo celiyo weli waxaa maanta ishor fadhiya dhallinyaro soomaaliyeed oo ku kala socda magacyo degaan iyo qabaliyada islaynaya kuwa dowlado iyo ururo dowladaha nidaamyadaas meelaha ka jira ka soo horjeeda dhibaato fara badan baa jirta meel walbaana waxaa ka dhacaya qatli dhiig qof bini aadana oo runtii ah waxaa ugu yaabka badan in qof bini aadana dhiiggiisoo ilaahay xarrimay in la banneeyo oo la dilo waxaynuna ku aragnaa meel walbo maanta soomaaliya ka mida inuu ka dhacayo dhibaatooyinkaas dhacaya dartood waxay nala noqotay anigii saaxiibkay jacaal ciise yuusuf oo runtii ah saaxiib aan aad ugu walaalownay ummadda soomaaliyeed wanaaggeeda in laga shaqeeyo isku barannay wanaag ummadda soomaaliyeed iyadoo la raadinayo welina aanu ku wada soconno in ummadda soomaaliyeed wanaaggeeda la raadiyo maanta socdaalkan aanu soo gallay oo aanu ku soconno magaalada birmingham ugu yaraan lacag waxaa nagaga baxday $100 ku dhow soo noqodkana waxaa laga yaabaa inay taas in la eg nagu noqoto oo aan dowladna siinaysaa aanay jirin cid maaragtay nagu kaabaysaa aanay jirin horena aanu u soo galnay adduun aanu ku qiyaasaynay ilaa $50,000 oo maanta aan wax ku qabsan karnay horumar kaleeto ganacsi abnololeed waxaan u ordaynaa marka maaha inaanu dana gaara siyaasad iyo xukun haddaan rabno dowladihii dalka soo maray oo aanu xiriirro dhowdhow oo saaxiibnimo iyo aqoon la lahayn oo dowladda hadda ugu dambayso oo shariif sheekh axmed madaxweynaha ka yahay ay ugu horrayso kamaanan waayin inaanu wax qabsanno inaannu dalkaas badihiisa iyo berrigiisa la goobayo haddaannu dana khaasa leenahay inaannu wax ka qabsanno waxaan markaa is leenahay maanta ummadda soomaaliyeed meel iyo waa ay joogtaba walaalayaal waxaa loo baahan yahay isbeddel ku yimaada rabitaanka iyo horumarka dalxa sadaalkeeda ku muuqata saaxiibkay ducaale iyo anigaba wax badan baan kambeynka ku soo jirnay wax badan baan dhahay berri saa dambe xilli kale si uu noqon doontaa dabcan isbeddelkii dhabta ah oo aan rajaynaynay weli ma iman haddana kamaanan quusan in
aanu u taagnaano qadiyadda ummadda Soomaaliyeed annagoo kaashanayna dareenkeena aragtideenna rajana ka qabno ummadeennu maaha ummad wada dhiibtay oo isu dhiibtay in dalkeedu burburka ay ku daawato waxaanu qabnaa rajo waxaanu leenahay dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin liidaro u kaca waxay leeyihiin dadkii maanta marxaladda looga gudbi lahaa waxaan isleenahay waxaa tallaabadii ugu horreysay u noqon kartaan isbeddel caam ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo dalkeeda iyo dadkeeduba ay sameeyaan taasaa marka kaliftay inaanan seexanin gooraale aanu isku dayno wixii aanu dalka iyo ummadda Soomaaliyeed diintiisa iyo sharaftiisa u qaban karno inaanu u qabanno sidaa la socotaan caalamku wuxuu doonayaa in dawlad walba ay Soomaaliya ciidan u soo dirto maadaama ay tahay dal qani ah barwaaqo iyo baraare leh oo ay berrito danaheeda ku eegato caalamku maantana lagaa qarin mayo oo waa lagu sheegaya waxa lagu leeyahay danaha dawladda ay ka leedahay Soomaaliya wartanta adigu uga leedahay maxay tahay interestka dawlad hebel baa lagu leeyahay interestka dawlad hebel aniga maxay la galay muwaadin baan ahay Soomaali baan ahay dalkayga anaa iska leh warbal ii oggolaada in hor socodkii ummadaydu uu wax qabsado la wada hadlo oo fariisto magacyada dadkii loo wada bixiyay gobolladii waa la xayiri gobol hebel baa tahay waa lagu aqoonsanyaa lacag baa lagu siinayaa qaybin iyo xuduudo qabyaaladeed baa dadkii ka jira waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed haddii inagu aynu midowno oo aynu inagu maya nidhaahno cidina kuma khasbi karto dabcan marka waxaan walaalayaal idinka doonaynaa isbeddelku inuu inagana ka yimaado dadaalku inaga wadajirku inuu inagana ka yimaado waxaan jeclahay marka inaan saaxiibkay Ducaale Ciise inaan maaragtay isagana bal bal isagana wareejiyo Ducaale بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha Soomaaliyeed ee barnaamijkan daawan doona waxaan leeyahay ku soo dhawaada sanadka cusub 2012 sida la socotaan dowladda dalka Ingiriiska waxay ku dhawaaqday in ay tagi doonto dalka Soomaaliya oo ay geey doonto ciidamada ay leeyihiin haddaba ciidamo 9,000 ayaa jooga hab yaraatee waxay soo kordhiyeen ma jirto inay soo kordhiyaan dhimasho iyo gaajo dadka Soomaaliyeed maanta haysata haddaba walaalayaal dalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dad wanaagsan oo madax wanaagsan shacab wanaagsan oo wax maqlaayo oo isu tanaasulaya waddankan maanta joogno ujeedaa London ma ka soconaa waxaan soconaa Birmingham waddadan la yiraahdo M42 baan saaranahay haween wax dhibaato oo jid qof noo fadhiyan ka baqayno ma jirto waayo ummadda dhan wada shaqaynaysa dawlad bay doorteen sidaa daraaddeed noloshaanay abuurteen laakiin markii la yiraahdo anaa gobolkan iska leh gobolaysigan la leeyahay anaa gobol iska leh for example hadda aan gobolka soo qaadna la yiraahdo reer jifi baa gobol samaystay security ma laha caafimaad ma laha education ma laha ama tacliin ma laha shaqo ma laha employment ma jirto marka dadku si u noolaanaya sida xayawaanka oo kale maalintaa wax inuu cuno haddii kalena uu gaajaado laakiin hadday dawladda jirto waxaa imaanaysa in shaqo la abuur nabadgelya imanaysa dawladnimadu waxay ku fiican tahay waxa weeyaan waa tii dalka daryaysa laakiin haddii dawladnimada la diiday sida maanta joogto oo la yidhaahdo annagaa reer qasax iyo annagaa reer qurax iyo annagaa laan leh Soomaaliya saa kama baxaysa marka realitiga anagu waxaan weligan aan jeclayn inay Soomaaliya ay hagaagto marka waxay ku hagaagi kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen inay maaragtay kacaan oo dalkooda u kacaan oo ka hadlaan maalin walba hadalkan ay action ku daraan sababtoo ah Soomaaliya waa ka daashay odayaasheenii Soomaaliyeed ee qaldamay ee iyagu problemkan keenay ee Ethiopia soo kaleysatay waan ka xumaa maanta inay weli hore fadhiyaan oo aysan hab yaraatay dadka Soomaaliyeed ka naxin marka waxaan leenahay odayaasha laftiga waa noo la dardaarmaya warnii waqtigii dhammaayaydan habaari mayne waxaan leenahay waa idin ducaynaynaa bal niyow u banneeya dhalinyarada Soomaaliyeed oo doonaysa dadka Soomaaliyeed aan xuquuqda qabin oo doonaysa dadka Soomaaliyeed inay dhiiggiisa bannaystaan oo ay dadka Soomaaliyeed kala kaxeeyaan annagu maadaama dad muslimiin nahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waddanka Soomaaliya la yiraahdo buu nasiiyo oo waddanku waa Soomaaliya adduunka maanta waxaan ku xeeshnaa waa Soomaaliya
qabiil waxba kuma heshin marka qabiilkana wax uu noo keenaya ma jirto marka annagoo muslimiina oo ilaahay islaam naga dhigay inaan islaamka dhinaca isaga riixno oo reer hebel isku wareysano oo dadku xataa markay sheekaysanayaan yaa waaye leeya war kan hadlaya waa kuma I think waa ka gudubnay waddankaanaan joogno waa kuma lagama yaqaan waxaa leeyahay maxaa taqaanaa kala socda maxaa taqaanaa baa jirta waxaynu kuu sheegaysaa maxaa taqaanaa maxaa tahay qofka waxay sheegaysaa waxa uu yahay laakiin dadkeena Soomaaliya boqolkiiba 9 waxaa arkaysaa dadka Soomaaliya maanta waxay u badan yihiin dhalinyaro boqolkiiba 30 aan idhaahdo boqolkiiba waxaan leeyahay 80 ama 90 waa dhalinyaro waa in ka yar 30 dhaqaale ma haystaan waxbarasho ma haystaan qabyaalad bay ku korayaan dagaal bay ku korayaan waxay u baahan yihiin markaasi dad maanta u kaca oo Soomaaliyeed especially dadka dibadda jooga ee dhalinyarada ana lama hadlayo dadka waaweyn ama qabyaaladii ku soo koray ama qabyaaladii inay maaragtay waddan ku dhaqan doonayaan ama gobolaysi inay ku dhaqan sababtoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala islaam buu nagu dhigay dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiin islaamkan wax kasta ka weyn wax islaamka ka weyn ma jiraan waayo waa nolol waa aqoon waa ixtiraam wax kasta weyn marka Soomaaliya maanta waxa ay diiday qof walba bahaade inay islaamka ay isku cafiyaan oo ay islaamka ku dhaqmaan oo Ilaahay sida uu yiri wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu taasoo dadka reer European ama dadkan westernka ay maanta isticmaalaan sababtoo always waxay ka taliyaan unity-ga Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wa'tasimu bihablillahi jamii'an kulliya